Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idinla wadaagaynaa macluumaad ku saabsan dhismayaasha ugu dhaadheer ee ku yaala wadamada Islaamka. Ilaa 10 wadan baan soo qaadanaynaa oo dhismayaashoodu ay aad u dhaadheer yihiin. Kaalinta 10aad waxaa ku jira dhismaha dalka Venezuela ugu dheer ee lagu magacaabo Barfi Central. Dhismahani waxa uu joogiisu dhan yahay 225 mitir, waxaana uu ku yaalaa wadanka Venezuela sidaan hore soo sheegnay. Kaalinta 9aad waxaa ku jira dhismaha ku yaala dalka Turkiya, kaasoo lagu magacaabo Istanbul Sapphire. Dhismahani waxa uu joogiisu dhan yahay 261 mitir ayuu ka sarreeyaa dhulka. Kaalinta 8aad waxaa ku jira dhismaha ku yaala dalka Bahrain, kaasi oo loo yaqaano ama loogu yeedho Four Seasons Hotel. Dhismahani waxa uu dhan yahay joogiisu 270 mitir. Kaalinta 7aad waxaa ku jira dhismaha ku yaala dalka Pakistan, kaasi oo ah ka ugu dheer dalka Pakistan, waxaana la dhahaa ama loogu yeedho ama loo yaqaanaa Baharia Icon Tower. Dhismahani wuxuu joogiisu dhan yahay 268 mitir. Kaalinta 6aad waxaa ku jira dhismaha ugu dheer ee ku yaala dalka Qatar, kaasoo magaciisa la dhaho Aspire Tower. Dhismahani waxa uu joogiisu dhan yahay 300 mitir. Kaalinta 5aad waxaa ku jira dhismaha ka dhisan dalka Indonesia oo loo yaqaano Gama Tower. Dhererkiisa ama joogiisuna waxa uu gaarayaa 310 mitir. Kaalinta 4aad waxaa ku jira dhismaha ku yaala dalka Kuwait, kaasoo lagu magacaabo Al-Hamra Tower. Dhismahani waxa uu joogiisu dhan yahay 413 mitir, waana dhismaha ugu dheer dalka Kuwait gudahiisa. Kaalinta 6aad waxaa ku jira dhismaha ku yaala dalka Malaysia, kaasi oo loo yaqaano Petronas Tower. Dhismahani waxa uu joogiisu dhan yahay 452 mitir, waana 2 dhismo oo sida mataano oo kale ah. Kaalinta 2aad waxaa ku jira dhismaha ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. Dhismahaasi oo loo yaqaano Abraj Al Bait, waxauna dhererkiisa ama joogiisu dhan yahay 601 mitir. Wadamada 10 ee soo xusnay waxaa kaalinta 1aad ku jira ama ugu dheer dhismayaashaas aan soo sheegnay dhismaha ku yaala dalka Imaaraadka ee lagu magacaabo Burj Khalifa, dhererkiisuna yahay 828 mitir.